السلام عليكم سو dhawaada saaxiibayaal waa mar kale iyo Mohamed. Waxaa jira application lagu magacaabo KineMaster oo dadka badankooda ay isticmaalaan qof walbaan oo isticmaalo application yani KineMaster gaara iyadoo ay kasoo kala degsadaan meelo fara badan yani sida Chrome-ka, Google Play-ga meelo badan wax laga degsado ayaa jira. Haddii aad kasoo degsatid application-ka KineMaster Google Play-ga ama sidoo kale hadaad wadato telefoonada Apple-ka App Store-kaaga aad kasoo degsatid waxaad ku arkaysaa calaamad xagga sare ka muuqata oo ay ku qoran tahay Made with KineMaster. Calaamadda waxaa lagu magacaabaa watermark ay u sameeyeen yani dadkii lahaa si loogu garto in application-kan lagu sameeyay video-ga. Haddaba waxaa jirta farsamooyin looga qaadi karo calaamaddaas isla KineMaster-ta. Qaybta koowaad ee looga qaadi karo KineMaster-ta waxay noqonaysaa inaad la macaamishid qorada iskale KineMaster-ta adigoo bixinaya lacag si ay kaaga qaadaan watermark-ga saaran videos-kaaga. Talabada labaadna waxay noqonaysaa cracking waxaa la dhahaa application-ka inaad mood ahaan usoo degsatid ama isagoo la jabsaday yani calaamadda laga delete gareeyay aad soo degsatid. Waxaan idinla wadaagi doonaa maanta version 4.14 oo bilaa watermark-ga aysan saarnayn wax calaamada aadna ka heli doonto qalabo badan iyo waxyaabo badan oo lagu soo kordhiyay. Way jiraan dad badan oo isticmaala aan ku arkay badanka dad badan oo isticmaala calaamadda taxagan kule ee Made with KineMaster ay ku qoran tahay. Markaad eegtid yani muuqaalkaaga wuxuu ka dhigayaa yani muuqaalkood ku qurxin kartaa waa isku dardarsan kartaa balse waxa dhibto ka taagantaa waxay ka muuqanaysaa qaybtan ayay ka muuqanaysaa mar walba oo video-gaaga aad dejisatid. Marka waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iidi doonto haddii aad daawatid ilaa dhammaadka aadna degsan doonto KineMaster ku anfici doontaa aan lahayn wax bilaa calaamad aan ka saarayn video-gaaga. haddaba intaan ugu gudagalin muuqaalkeena waxaan ka codsanayaa inaad channel-ka subscribe saarto sidoo kale muuqaalka aad like gareyso. sababtoo ah muuqaalka aad like gareyso waxay naga caawinaysaa inuu YouTube ku madhigo dad aan channel-keena xitaa subscribe saarin. waxaan rajeynayaa inaad intaas samayn doonto aadna u samayn doonto channel-keena. waxbayaan hadalka ku daalin waxaan ku leeyahay daawasho wacan. haddeerto waxaan ku guda jirnaa application-ka KineMaster. application-kan haddaad u baahan tahay waxaad ka degsan kartaa description-ka hoose muuqaalkan ama comment-ka ugu horeeya ee isla muuqaalkan. haddaba marka ugu horreysa intaynan yani sharaxin ama gudagelin waxa lagu magacaabo KineMaster-ta waxaan taabanaa calaamadda setting-taas si aan usoo ogaano information-keeda. calaamadda setting-ta ayaan taabanaa meeshan ay ku qoran tahay about KineMaster ayaan ku dhufanaa. haddeerto halkan waxaad u jeedaa inay ku qoran tahay 4.14 oo yani version-keedii ayay intan tahay. markaan haddii aan dib u noqono oo ku noqono waxa lagu magacaabo isla setting-teeni waxaad aragtaa meeshan ay ku qoran tahay device and capability ayaan taabanana. halkan waxaad ka bedeli kartaa yani marka ugu horreysa aad ku shubatid KineMaster-ta xaggan waxaa laga yaabaa inuusan ku ogolayn xataa 4K-gaas inuusan ogolayn. haddii teleefonkaagu yahay 4K waxaa laga yaabaa in ay kugu joogto ama 1080 ama 720. si haddaba uu mobilkaaga ula macaamilo waxaad samaynaysaa waxaad taabanaysaa calaamadda saddexda dhibcood kadibna run analyze ayaad ku dhufanaysaa kadibna analyze now ayaad oranaysaa. haddeerto aniga mar horan usoo sameeyey marka haddeerto uma baahni haddii adigood u baahan tahay waad samaysan kartaa. marka si uu teleefonkaaga yani uu 4K iyo wax ka badanba uu kugu duubo yani halkaas ayaad kasoo furanaysaa. haddii aan dib uga sii noqono qaybtan editing-ka ayaad waxba ka bedeli mayno sidoo kale qaybtan yani file location-ka waxba ka bedeli mayno. haddii aan ka bedelno waxaa laga yaabaa inuu yani muuqaalkan edit gareyno ama meeshii markaan yani aan export gareyno meeshii noogu dhici lahaa in ay naga khalkhasho. marka labada qaybood iyana waxba ka bedeli mayno. waxaan tegaynaa meeshan ay ku qoran tahay advanced and experimental ayaan taabanana. halkan muhiimadda ugu weyn halkan ayay ku jirtaa. marka ugu horreysa yani meeshan ay ku qoran tahay 60 fps aad ku aragtid qaybtan waxaa laga yaabaa inaysan calaamadan aysan ku furnayn. marka waxaa noqonaysaa inaad furtid si uu kugu wacno quality-ga muuqaalka aad dejinaysid ama aad ku sameynaysid KineMaster. sidoo kale qaybtanna isla sidoo kale yani iyana waxay ka qayb qaadanaysaa muuqaalkaaga qurxintiisa ama yani quality-giisa.
markaan usoo noqono tan ugu hooseysa ay ku qoran tahay unlimited video layer. marka ugu horeysa markaa soo gelisid muuqaal caadiya aad istiraadi muuqaalo kale kusoo darda sida yacni subscribe animation oo kale waxaa laga yaabaa inuu kaa diido, balse haddii aad kan furatid marnaba lagama yaabo inuu kaa diido, waxaa laga yaabaa inuu kuu fara badan kuu soo furo. marka halkan ayaan taabananaa continue ayaan sii taabananaa. markaad qaabka u haysatid marnaba lagama yaabo inuu kaa diido yacni fiidiyoyada aad soo gelinaysid ee muuqaalka weyn ka dambeyn doona. haddii aan ka noqono yacni qaybta sinta intaas ayaa naga eg tahay, waan kasii noqonana. waxaan taabananaa calaamadan balaaska. haddeerto halkan waxaad ujeedaa inay ku qoran tahay yacni aspects layna siiyey, balse marar hore ama farshamadii hore ee KineMasterta waxay lahayd keliya qaybtan ugu horeysa, qaybahan kale gadaal ayaa lagaga soo daray. marka waxaan taabananaa calaamada ugu horeysa muuqaalka aan haysano ayaa noocaas. marka waxaan soo qaadananaa muuqaalka aan u baahnayn yacni inaan habayno ama jarjarno. marka waxaan taabananaa muuqaalka ayaan soo qaadanana. tusaale ahaan hadda muuqaalkan oo kale ayaan soo qaadnay. yacni muuqaalkan markaan soo qaadno meeshan ugu horeysa ay ku qoran tahay layer ayaan taabananaa. layer markaad taabatid meesha ugu horeysa ay media ku qoran tahay ayaan taabananaa. halkan waxaan kusoo darsan karnaa muuqaalku xalaalo wixii aan u baahannahay oo aan ku darsan karno hadday noqoto yacni video layers. video layerka marka dhowta aan sheeganay ee unlimited meesha aan kasoo dhiganayna kuwan weeyaan. yacni waxaa laga yaabaa inaad muuqaalka uga baahatid inaad 10 xabo ilaa 20 xabo kale aad yacni uga dhigtid layer noocan ayaan wacayna. haddaba waxaan idin sheegayaa tallaabo yacni muuqaalka adar backgroundkiisu waa madow sidii aad uga qaadi lahayd. farshanada waxyaabaha lagu soo kordhiyay farshankan ayaa waxaa ka mid tahay inaad taabatid calaamada ay ku qoran tahay blending, aad tagtid kadibna calaamada screenka aad sii taabatid si uu screenkaaga uga muuqdo qoraalkii oo khaliya. sidoo kale waxaa kusoo dari kartaa cod adigoo taabanaya meeshan ay ku qoran tahay audio. halkan ayaa waxaa kasoo dooranaysaa codka aad u baahan tahay yacni inaad saartid muuqaalkaaga. muuqaalkaaga hore codkiisii isna sidoo kale waad ka xiri kartaa adoo taabanaya muuqaalkaaga korkiisa kadibna taabanaya calaamada yacni codka kadibna halkaa ugu sareysa taabanaya. markii aad qaabkaa usoo waxaysid haddaba muuqaalkeena waad aragteen yacni qaabka uu yahay. haddeerto waxaad ujeedaa muhiimadeena waxay ahayd inaan ka qaadno watermarga. qaybtan u sareysa markaad aragtid kama muuqato wax calaamada watermarga kama muuqato. sababtuna applicationka ayaa la karaagareeyey oo yacni muusan ahayn applicationka originalka aan kala soo degnay Google Play-ga. waxaan rajeynayaa inaad applicationkan degsan doonto weliba hab fudud adigoo ka degsanaya ama descriptionka ama commentiga ugu horeeya ka degsanaya. haddaba si aan muuqaalkeena u dejino waxaan taabananaa calaamadan ayaan taabananaa. haddeerto halkan waxaad ku aragtaan inay ku qoran tahay yacni waxyaabo fara badan ay kaaga muuqdaan adoo ku degsan kara 4K, sidoo kale adoo ku degsan kara 1440 1080 adoo ku degsan kara. talada kale aan ku siinayaan waxay noqonaysaa qaybtan aad u jeedid mar walba waxaan kugula talinaya inuu noqdo muuqaalkaagu meesha ugu dambeysa joogo. mar walba oo ay tani badato muuqaalkaaga quality-giisa wuu fiicnaanaya. marka export meesha ay ku qoran tahay ayaan taabananaa. sidaas ayuu muuqaalkeena inoogu dhacaya. waxaan rajeynayaa inaad soo aragtay ama soo degsatay applicationka KineMaster ama aad degsan doonto. applicationka KineMaster wuxuu kaa saacidayaa waxyaabo fara badan hadday noqoto yacni inaad fiidiyoyadaada isku dardartid, jarjartid, sidoo kale aad qurux badnaysiisid. badanaa anigu fiidiyoyada aan soo gudbiyo waxaan kusoo habeeyaa applicationka KineMaster. runtii waa application lagama maarmaana dadka youtuberska isticmaala teleefanadooda. way jiraan applicationo badan oo la isticmaalo markaad sameynaysid muuqaal qurxinaysid ama hagaajinaysid, balse waxaan rajeynayaa applicationka KineMaster inuu noqdo applicationka ugu horeeya ee aad ku sameyn karto muuqaalo aad iyo aad u qurux badan. waxaan ku leeyahay ka faa'iideyso waqtigaaga oo samee muuqaalo qurux badan.